الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. dhammaan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamku isugu duceeyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan rabaa si gaara inaan marka u salaamo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo xukuumaddiisa, labada gole ee baarlamaanka, guddoomiyaha gobolka, taliyaha booliiska, odayaasha dhaqanka oo u horeeya imaamka ugaas maxamuud cali ugaas iyo saaxiibkay garaad cagay. waxaan salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed mansab kasta iyo magac kasta oo meeshan ku fadhiyaan. salaan ka bacdi waxaan rabaa intaanan ajandaha gelin inaan u mahad celiyo beesha walaalahan soomaaliyeed ee gobasha dhigtay oo ah beesha mudulood. waxaana leeyahay wakhtigii ugu habboonaa ayaad xafladdan qabateen. sababtuna waxay tahay wasaaraddii u dambeysay xukuumaddu shalay ayay la waraagtay. intaa kadib ajanduhu waa soo dhoweynta ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi barre iyo xukuumaddiisa dan qaran. xukuumad kasta magac bay leedahay. xukuumaddan hadda dan qaran baa la yidhaahdaa sida laynoo sheegay. waxaan leenahay ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa soo dhowaada. shantii beelood ee soomaaliyeed meeshan way fadhiyaan, waana idin soo dhoweynayaan. soo dhoweyn kadibna way idin ducaynayaan. ilaahay waxaan idinka baryaynaa inuu idinla garab galo hawsha baaxadda leh ee idin hortaalla. mar haddaanu idin ducaynay, idinla hambalyaynay, idinna soo dhoweynay, 4 qodob tirada ku darsada. soomaali maanta 4 qodob waa idinka sugaysaa, waa inta ugu culus. soomaali dib u heshiisiin waa idinka sugaysaa. soomaali dalka ood xoraysaan bay idinka sugaysaa. soomaali jidadka soomaali dalkeeda oo dhan inaad furtaan baa laydinka sugayaa. qodobka ugu muhiimsani waxa weeye inaad naga saartaan 4.5ka oo aad qof iyo codna gaadhsiisaan. annagoo idin hambalyeynayna, idin soo dhoweynayna, idiina ducaynayna in badan. waa 5tii beelood bay beesha mudulood walaalahan isugu keen yeertay. anigu waxaan ku hadlayaa afka beesha daarood min raas casayr ilaa raas kamboni. waxaana ballan qaadaynaa inaanu dowladda taageerno. waxaan ballan qaadaynaa inaan dowladda taageerno. beelaha soomaaliyeedna waxaan ka codsanayaa inay sidaas sameeyaan. baaqa marka aan rabo inaan soomaali u diro dal iyo dibad waxa weeye, soomaali waxaan ka rabnaa oo walaalahan aan ugu baaqayaa inaan dowladda la shaqayno. shacabkeennu kama liito shacabka turkiga ee dowladdoodii inqilaabka u diiday. innagana waxaan qabaa haddaynu shacabkeennu dowladda la shaqayno inay dowladdu horu marayso. ilaahay xamdigiis weeye. waxaynu nahay qowmiyad soomaali la yidhaahdo. halkaa qowmiyad baa dalka soomaaliya ku nool, hal diin haysata, hal luqad leh, hal dhaqan leh, hal diinana leh. in dalkii laysu keeni waayo wax macquula ma aha. marka soomaali dal iyo dibad waxaan leeyahay aan u istaagno dalkeenna sidaan u dhisan lahayn. dalkeennu waa dal barwaaqo ah. cid walbi waxa ay ugu haliilayso ama ugu ordayso waa khayraadka dalka ku jira. soomaali baana laga rabaa inay difaacdaan. haddaan ku noqdo xukuumadda, waxaan leeyahay xukuumadda waxaa horta waano idinku filan iyo dardaaran. hadalkii barbaarta gaasaaman iyo saaxiibkay garaad cagay
أها والله ودارتين كتاب بعد أنت صارتين وأنا الله يدين ورثها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وما تسمع سلطان كم مركان وحد